ugu yaraan 4 qof ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen 9 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn loo adeegsaday diyaarad drones ah oo saaka Ruushku uu ka geystay magaalada Sumy ee waqooyi bari ee Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka. Gudoomiyaha gobolka Vladimir Artyukh ayaa sheegay in adeegyada gurmadka ay wili ay soo saarayaan dad ku hoos jira burburka dhismaha sida ay soo warisay wakaalada wararka ee Reuters. weerarka ayaa burburiyay 5 guri oo dabaqyo ah waxa kale oo uu waxyeeleeyay in ka badan 20 gaari sida ay sheegeen mas'uuliyiinta. shaqada gurmadka ayaa wili sii socota ilaa subaxnimadii hore ee saakane socotay. gobolkani waxa uu xuduud la leeyahay gobolka Kursk ee Ruushka halkaasi oo Ukraine ay weerar ay ku qaaday bishii Agoosto 2024 waxaana si joogto ah loogu weeraraa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Ruushku waxa uu dafiray in uu si kasa u beegsaday shacabka balse kumanaan qof ayaa ku dhintay kumanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen tan iyo markii ciidamada Moscow ay duulaan buuxa ay ku qaadeen Ukraine bishii February ee sanadkii 2022. waxaana warbixintan ay ku aadan tahay waxyaabihii la yaabka lahaa ee cajiibka ah ee bandhiga maanta ay soo bandhigeen xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta markii la sii deynayay maxaabiista Israa'iiliyiinta. si gaar ah waxaynu u eegaynaa warbixintan wakaaladu ay diyaarisay oo ay kaga hadashay boorarkii la soo dhigay goobtii maanta laga sii deynayay mid ka mid ah maxaabiista Israa'iil waa Jabaaliya. fariinta koowaad waxay ahayd sawir halkaasi la soo dhigay oo ay ku xardhan yihiin qoraallo iyo weliba sawirro loogu talagalay in Israa'iiliyiinta fariin loogu diro. fariintaas haddaba maxay xambaarsantahay? aynu eegno warbixinta ay qortay wakaalada wararka ee Anadolu. xarakada Xamaas ayay wakaaladu leedahay waxay soo bandhigtay astaamo jees ah oo ay ku jeestay cutubyada ciidamada Israa'iil ka qayb qaatay dagaalkii Gaza, iyagoo sawirro ku soo bandhigay madasha lagu wareejinayay gabadha askarta ciidanka Israa'iil ka mid ahayd ee lagu magacaabo Ajam Berger oo maanta la sii daayay. waxaana arrintaasi ay ka dhacday xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee dhacda waqooyiga Mareyka Gaza. sawirrada waxay muujinayaan astaamaha cutubyada guutooyinka ciidanka Israa'iil gaar ahaan Jifati, Nahal, Kavir iyo weliba guutada 401 sida uu tabinayo wariye ka tirsan wakaalada wararka Anadolu. astaanta cutubka ciidamada Jifati oo ah una ka tirsan ciidamada gaarka ee Israa'iil ayaa waxa lagu bedelay dawaco, waxaana loo ekeysiyay dawaco dhabarka laga geliyay mindi iyadoo korkana lagu qoray afka Cibraaniga ama afka Yahuudda oo ah Jabaaliya, qabrigii Jifati. astaanta guutada Kavir oo ka mid ah ciidamada lugta ayaa astaantooda oo ah midi waxaa lagu sawiray mididii oo dhex gashay qalfoof, taasi oo loola jeedo askarta Israa'iil ee lagu dilay Gaza. astaanta guutada Nahal oo ka mid ah cutubyada ciidanka Israa'iil ee gaarka ah oo ahayd sabool midabyo badan ka kooban ayaa waxaa lagu bedelay saboolkii oo la jarjaray. intaasi kuma eka, hal abuurayaasha Xamaas waxay leedahay wakaaladu waxay kaloo bedeleen astaantii cutubka 401 ee ciidamada gaashaamada ee Israa'iil. astaantooduna inta badan waa astaan koofiyad, laakiin koofiyadii ayaa waxaa la dhex geliyay qalfoofka madaxa qolof, taasi oo loola jeedo askarta Israa'iil ee lagu dilay Gaza. 4 ka mid ah cutubyadan militariga ee ciidanka Israa'iil ayaa waxay howlgallo ballaaran ka fuliyeen waqooyiga Mareyka Gaza, kuwaas oo sababay burbur baahsan iyo dhimasho iyo dhaawac 10,000 oo Falastiiniyiin ah. Xamaas waxay u adeegsatay madasha lagu wareejinayay maxaabiista Israa'iil inay fariimo toos ah u dirto shacabka Israa'iil oo si weyn arrintan ugala socday telefishinada, gaar ahaan markii maxaabiista la wareejinayay. Xamaas waxay adeegsatay luuqadda Cibraaniga si ay fariintaasi toos u gaarsiiso Israa'iiliyiinta. Khamiistii, cutubka Al-Qassam ee garabka militari ee Xamaas ayaa waxay wareejiyeen maxaabiista Israa'iil iyagoo ku wareejinaya hay'adda Laanqaydha Cas, kadibna waxay saareen ama goobtaasi ku soo bandhigeen muuqaalada howlgalladii ay fuliyeen iyo weliba fariimo kala duwan oo ay kula hadlayaan Israa'iil. arrimaha kale ee xiisaha leh waxaa ka mid ahaa in goobta uu ka muuqday qori ka mid ah qoryaha sida gaarka ciidanka Israa'iil ay u adeegsadaan. qoriga noociisa lama caddayn, balse khubarada militariga waxay sheegeen inuu ka mid yahay qoryaha ay isticmaalaan guutooyinka gaarka ee ciidanka Israa'iil ee loogu talagalay inay soo furtaan lahaystayaasha
ma jiro wax faalla ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Israa'iil oo ku aadan qorigaasi laakiin waxa la xasuusta ayay leedahay wakaaladda wararka Anadolu bishii May 2024 guutada Al-Qassam ayaa soo bandhigtay muuqaalka hub ay sheegeen inay ka qaniimaysteen dagaalyahanadoodu ciidanka Israa'iil xilli ciidamada Israa'iil ay isku dayeen inay hawlgal ka fuliyaan Jabaaliya hawlgalkaasi ay doonayeen inay ku soo furtaan qaar ka mid ah lahaystayaasha Israa'iil hadalkii xilligaasi uu jeeday Abu Ubayda ayaa waxa ka mid ahaa in uu sheegay in ay qabteen mid ka mid ah askarta Israa'iil meydkiisa waxaana muuqaalka la soo bandhigay ku jiray askarigaasi oo loo sii jiidayo god dhulka hoostiisa oo ku yaal waqooyiga Mareyka Gaza waxaana sidoo kale la soo bandhigay laba koofiyadood iyo dareeska ciidanka iyo hub la sheegay in laga furtay ciidanka Israa'iil ee xilligaasi isku dayay inay soo furtaan maxaabiista waxaana wakaaladdu ay u badanaysaa in qorigan uu ka mid ahaa qoriyihii ay wateen askartii xilligaasi doonaysa inay soo furtaan maxaabiista Israa'iiliyiinta iyadoo wararkuna sheegayaan in arrintaasi ay tahay tan ilaa hadda sida weyn dadka Israa'iiliinta uga careysan yihiin iyadoo haatana wararku sheegayaan in Netanyahu uu amray dib in loo dhigo sii deynta maxaabiista Falastiiniyiinta taasna waxay khubaradu ku macnaynaysaa inay tahay iyadoo la aaminsan yahay in Netanyahu ka careysan yahay bandhigyadan xogaga iska caabinta Falastiiniyiintu ay ku soo bandhigayaan goobaha lagu sii deynayo maxaabiista Israa'iil si weyn baa looga falcelinayaa waxyaalaha horta cajiibka waxa ka mid ah goobta ku taal magaalada Tel Aviv ee la yiraahdo fagaaraha lahaystayaasha ayaa waxa ku rakaban shaashado waaweyn marka laga tago dadku inay guryahooda iyo internetka kala socdaan si toos ah marka maxaabiista la wareejinayo laakiin haddana shaashadahaas waaweyn ayaa waxaa halkaas soo dhoobta dadka Israa'iiliyiinta oo markaasi wax walba ka dhacaya Gaza iyo goobta maxaabiista lagu wareejinayo si toos ah oo aan la dabooli karin oo aan la qarin karin ayaa gudaha Israa'iil lagala socdaa markaynu eegno markaa sida madaxda Israa'iil arrintan uga falceliyeen waxaa goor dhaweeyta hadlay wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee xilka banaynaya Itamar Ben-Gvir wuxuu sheegay in wasiirka uu dhigay sawirada ka imaanaya Gaza ay cadeynayaan waxa halkaasi ka socda inaan la oran karin waa guul laakiin ay tahay guul darro dhameystiran sida uu yiri waxa kale oo uu sheegay in isdhaafsiga maxaabiistan uu yahay mid shaki gelinaya xukuumadda Israa'iil waxaana uu sheegayaa in xukuumaddu ay dooratay wadadan yani wuxuu la jeedaa isdhaafsiga maxaabiista oo isagu wuxuu qabay in maxaabiisi waxaas laga wada hadlin oo toos qasal loo weeraro ilaa maxaabiista ama la soo furto ama Xamaas la baabi'iyo si hadalka uu dhigayo marka dhinacaas waa dhinaca xubnaha xaq jirka ee ka tirsan xukuumadda Netanyahu inkastoo ninkan xilka iska casilay laakiin wali booskiisa lama buuxin laakiin xilka uu banaynaya Netanyahu isaga laftigiisa barta X wuxuu soo dhigay fariin uu ku leeyahay waxa la aqbali kara ma ahan waxa ka socda Gaza iyo marka maxaabiista la soo bandhigayo wuxuuna leeyahay waxaan kala hadli doonaa dhexdhexaadiyaasha arrintaas inaysan mar daba dhicin waxaana la aaminsan yahay tan inay tahay sababta uu dib ugu dhigay in la sii daayo 110 maxaabiistaha oo markii basaska lagu guray isla markiiba la soo celiyay markii ay dhaqaaqeen marka waxa moodaa arrintan inay tahay arrin kooxaha iska caabinta Falastiiniinta Israa'iiliinta maskaxda ay kala dagaalamayaan sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan waxaa jiray qori saarnaa miiska goobta ee lagu wareejinayay mid ka mid ah maxaabiista wuxuu ahaa qorigaasi oo aan ka ognahay qorigan ilaa hadda horta waa lagu weerarsan yahay laakiin wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo aad uga warqaba dagaaladan ka socda Mareyka Gaza ayaa barta X wuxuu soo dhigay xog ku saabsan qorigan waxa la yiraahdaa EVO lambar 3 waliba markii si fiican loo eego waa qoriye inta badan aan la arkin oo ciidamadu aysan arkin laakiin wuxuu sheegayaa wariyahaasi qorigan inuu kamid ahaa qoriye ay iska lahaayeen ciidanka gaarka ee Israa'iil oo isku dayay inay soo furtaan maxbuus Israa'iiliya oo lagu magacaabi jiray Sahir Bahrush oo ku dhintay hawlgalkii dabcan lagu soo furto marka waxay u badan tahay qoriga in laga furtay dagaalyahanada iska caabinta ay ka furteen Israa'iil ciidamadeeda dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniyiinta waliba qorigan Jabaaliya ayaa lagu soo bandhigay waxaa la saaray miiska meeshii lagu soo deynayay gabadha maxaabiista kamid ahayd maanta maxaabiista laba meel baa lagu soo kala daayay midna waxa lagu soo daayay gabar Jabaaliya 7 maxbuus kale waxa lagu soo daayay
Khan Yunis weliba labada maxaabiista oo ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Erbil Yahuuda waxaa lagu sii daayay kadinka hore ee gurigii Yahya Sinwar ee ku yaala Khan Yunis banaankiisa hore marka sawirkiisa meesha ka muuqday isagoo bistoolad la soo baxaya fariin bay ahayd marka ay dirayaan xogaga iska caabinta Falastiiniinta marka haddaan dib ugu laabto su'aashaada qorigaas xogtaas ayaa laga bixiyay wixii khubarada ka talaadana waynu arki doonaa waxay ka turjumayaan arrimahan marka dadka arrimahaani ka faalloonaya iyo khubarada dhanka diblomaasiyadda iyo dhanka ciidamada intoo waxay leeyihiin waa fariin ka turjumaysa in kooxaha iska caabinta Falastiiniintu ay muujinayaan inaysan waxba ka jirin warkii uu sheegay Netanyahu ay ahaa in la jabiyo kooxahan maalmihii hore waxaynu arkaynay fagaaraha Falastiin iyo fagaaraha Saraya markii lagu soo daayay ama lagu wareejinayay maxaabiistii hore in ay soo daysay Kataib al-Qassam garabka hubaysan ee ururka Hamas laakiin Khan Yunis labadan maxbuus Israa'iiliga lagu soo daayay waxa soo daayay Saraya al-Qudus inkastoo ay ku jireen laba guuto oo kale iska caabinta kamid ah sida wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan laakiin labada dhinacba waxa ka muuqatay inay diyaarsanaayeen ciidan gaadiid aad nadiif u ah oo aan wax burbura ka muuqan oo aad loola yaabay oo leeyahay gaadiidkan xagee bay ku jireen ciidamo diyaarsan fariimo la soo dhigay goobta halku dhigidii aynu ka hadlaynay oo guutooyinka ciidanka Israa'iil lagu jeesjeesiyay waxaas oo dhan waxay dirayaan baa leeyahay fariin ah 15 bilood Israa'iil inay dagaal waday dagaalkiina aysan ku guuleysan sida khubaradu ay leedahay marka fariin caynkaasi oo kala ay arrintaasi diraysaa ugu dambeyntii sida in lagu soo daayo maxaabiista iyo bandhigan oo kale muxuu uga macno yahay Falastiiniyiinta shacabka iyo kooxaha iska caabinta ahba goordhaweyta waxaan daawanayay muuqaal la soo dhigay telefishinka Al-Aqsa ee Falastiiniyiinta nin odaya oo Khan Yunis degan ayaa wuxuu ka sheegay goobta in xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo xubno badan oo kamid ah qoyskooda ay ku dhinteen dagaaladii iyo duqeymihii dhacay laakiin haddana wuxuu leeyahay innaga Falastiiniyiinta ah waxaynu taageersanahay iska caabinta marka waxa moodaa inay tahay fariin ay dirayso Falastiiniyiinta oo ah anagu wali waynu joognaa nala kama guuleysan awooddeena way dhisan tahay markaad eegto dadka faraha badan ee goobta yimid oo calamada iska caabinta iyo calanka Falastiiniyiinta wata iyo halka dhigidii ay sheegayeen iyo buuqa iyo sawaxankan hadda laftigeeda arrintan uu ka hadlay Netanyahu markaad eegto waxa la leeyahay Falastiiniyiintu fariin bay dirayaan ma ahan oo kaliya Israa'iil inay u dirayaan xitaa waxay u dirayaan baa leeyahay Donald Trump oo ah in uu isku dayayo in dadka Falastiiniyiinta laga barakiciyo marayka Gaza waxay kaloo isku muujinayaan Falastiiniyiinta awood kasto Israa'iil ay isticmaashay 15 bilood oo duqeyn iyo dagaal ah inaysan gaarin hadafkeedii oo ahaa inay ka takhalusto kooxahan oo Falastiiniyiintuna gacmaha ay taagtaan oo calan cas ay qaataan marka waxay isku arkaan inay guuleysteen sida dad badan oo arrimahan ka faalloonaya ay sheegayaan Maxamed